kulan waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka hadaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah baarlamaanka maamulka Puntland oo ku qasbay madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdullaahi Dani inuu ka laabto go'aan hore u qaatay kadib markii ay sii xoogaysatay xiisadda baarlamaanka iyo madaxtooyada maamulkaasi war farxad leh oo dadka Soomaaliyeed ka soo gaadhay qaaradda Yurub kadib markii wadamo ku jira midowga Yurub ay aqoonsadeen baasaboorka Soomaaliya oo ah macno weyn ka lahayn dunida 30 sano ee la soo dhaafay Kenya oo soo bandhigtay lacagtii ugu badnayd oo ay ka faa'iiday 40 maalmood ee ugu horeysay ee u soo dhoofisay Soomaaliya qaadka kadib markii laga qaaday xayiraadda labadaas iyo kuwa kale intaas ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socotid wararka iyo warbixinadan halka soo gelino ku bilownay baarlamaanka Puntland ayaa ku qasbay madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdullaahi Dani inuu ka laabto go'aan uu hore ugu dhagay kadib markii ay cirka isku shareertay xiisadda ka dhaxaysa golaha wakiilada maamulkaasi Puntland iyo madaxweyne Dani khilaafka u dhaxeeya baarlamaanka Puntland iyo Dani ayaa si xoogaysanayay bilihii u dambeeyay kadib markii ay golaha wakiiladu hor istaageen dhowr tallaabo oo u qaaday madaxweynaha maamulkaasi waxaana dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ka socday magaalada caasimadda u ah Puntland ee Garowe wadahadalo ay garwadeen ka ahaayeen dhinacyo kala duwan oo la doonayay in lagu dhameeyo xiisadda u dhaxaysa hogaamiyaha Puntland Siciid Dani iyo golaha wakiilada shacabka ee Puntland wararka hadda ka imanaya magaalada Garowe ayaa waxay sheegayaan inuu qabsoomay kulan ballaaran oo ujeedkiisu uu ahaa si diiradda loo saaro dhamaynta xiisadda u dhaxaysa labada dhinac kulankani waxaa yeeshay guddi ka socday baarlamaanka Puntland iyo madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdullaahi Dani kaasi oo looga hadlayay xiisadda taagneyd bilahani kulankani oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii xal loogu heli lahaa xiisadda u dhaxaysa baarlamaanka iyo madaxtooyada taasi oo ka dhalatay xooggeedu magacaabista xubnaha maxkamadda sare ee Puntland ay ka biyo diideen golaha wakiiladu islamarkaana uu isku qalajiyay madaxweyne Dani diidayna dhankiisa inuu dib uga laabto xubnaha uu soo magacaabay wakiilada shacabka ee Puntland ayaa muddo 2 jeer ku gacan saydhay go'aan madaxweyne Dani ugu dhagay xubnaha la soo magacaabay ee garsoorka Puntland kuwaasi oo aqlabiyadii ugu badnayd ay ka codeeyeen kulankani hadda dhexmaray guddiga ka socday xildhibaanada Puntland iyo madaxweyne Dani ayaa laga dareemay isku soo dhawaansho labada dhinac ah taasi oo meesha looga saarayo madmadowgii soo kala dhexgalay madaxtooyada iyo baarlamaanka sida wararka ka soo baxay kulankaasi ay xaqiijiyeen madaxweyne Dani ayaa ballan qaaday inuu mar kale soo magacaabayo xubnaha maxkamadda sare oo ay goluhu hore u diideen inay meel mariyaan taasi oo xudun u noqotay khilaafka siyaasadeed ee ka jira magaalada Garowe iyo maamulka Puntland dhexdiisa iyadoo gudoomiyaha golaha wakiiladu oo markii hore saaxiibo ahaayeen Dani uu la saftay xildhibaanada kana soo horjeeday xubnaha golaha garsoorka ee uu soo magacaabay Dani baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaana hadda ku qasbay madaxweyne Dani inuu ka laabto go'aankaasi oo uu ku doonayay in lagu meel mariyo xubnaha golaha garsoorka uu isagu jeclaystay wararku waxay intaasi ku darayaan in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland ay keensadeen xubnaha qaar oo loo magacaabayo maxkamadda sare ee Puntland taasi oo cadaadis ku saarayaan madaxweynaha oo horey muddo 2 jeer ugu adkaystay xubnaha uu isagu soo magacaabay laakiin baarlamaanku ay diideen waxaa sidoo kale iyana suuragal ah in madaxweynuhu ciyaaro shax kale oo isla markaana uu soo celiyo xubnihii horey loo diiday ee uu magacaabay maxkamadda sare ee Puntland laakiin mowqifka adag ka qaateen golaha wakiilada maamulkaasi arrintaasi waxay dib u soo celin kartaa haddii ay dhacdo in baarlamaanku mar kale ku gacan saydhaan magacaabista madaxweyne Dani islamarkaana uu dib u soo laabto khilaafka madaxtooyada iyo baarlamaanka si kastaba xiisadani ayaa si weyn u saameysay wada shaqaynta xukuumadda iyo baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn looga dareemayay magaalada Garowe iyo deegaanada kale ee hoostaga maamul goboleedka Puntland baarlamaanka xubno ka mid ah ayaa ku eedeeyay madaxweyne Dani inuu isku dayayo in qaban sharciga waafaqsaneen ku meel mariyo xubnaha maxkamadda sare ee Puntland kadib markii uu dib u soo magacaabay iyadoo ay ka codeeyeen xubnaha golaha wakiilada ee maamulkaasi baarlamaanka Puntland ayaa sidoo kale ka hor yimid sharciyo kale oo ka yimid dhinaca madaxweyne islamarkaana la horgeeyay golaha wakiilada
intii uu jiray khilaafka labada dhinac. Hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo wajahaya xiisado siyaasadeed oo kale islamarkaana kaga furan maamulka Puntland islamarkaana kaga imanaya siyaasiyiinta kale iyo waxgaradka maamulkaasi ayaana hadda ku qasban inuu la heshiiyo baarlamaanka maadaama iyagu awoodaan in haddii khilaafku sii siyaado inay ka xayuubiyaan jagada madaxweynaha maamulkaasi. Deni ayaa tan iyo markii uu ka qayb galay tartankii madaxtooyada Soomaaliya ee dhacay 15 bishii May ee sanadkani waxa uu wajahayay xiisado siyaasadeed oo xooggan iyadoo ay ka soo horjeedsadeen inta badan siyaasiyiinta iyo waxgaradka maamulkaasi. Siyaasiyiinta Puntland ayaa ku eedeeyay madaxweyne Deni inuu la tashi la'aan ku galay doorashadaasi islamarkaana uu sagxad cidla ah dhigay maamulka Puntland oo hadda awood qaybsi muuqda ku lahayn dowladda dhexe ee Soomaaliya maadaama uu ku guuldaraystay inuu Puntland u keeno madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha. Siciid Deni ayaa markii looga guuleystay doorashadii madaxweynaha islamarkaana uu qaatay kursiga Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dadaal u galay in isaga loo magacaabo ra'iisul wasaaraha dalka hase yeeshee taasi uma suurtagelin kadib markii Xasan Sheekh Maxamuud ay soo gaadheen dhowr ah oo u sheegaya inayna wada shaqayn karin isaga iyo madaxweyne Deni. Madaxweynaha Puntland ayaa dib ugu laabtay magaalada Garowe ee caasimadda maamulkaasi ee Puntland wuxuuna la kulmayay tan iyo wixii intaasi ka dambeeyay dhaleecaymo iyo mowjado siyaasadeed oo kala duwan. Dhanka kale ifafaalo wanaagsan ayaa ka soo yeedhaysa dhinaca dalalka midowda Yurub kuwaasi oo xilligani kor u qaadaya awoodda baasaboorka Soomaaliya oo aan si weyn loo qadarinaynin 30 sano ee lasoo dhaafay kadib markii ay burburtay dowladdii awoodda lahayd ee Soomaaliya 1991. Baasaboorka Soomaaliya ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay u muuqday mid soo xoogaysanaya marka loo eego sida uu ahaa wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee waddanka. Inkastoo baasaboorku weli uuna meel sare uga xusnayn liiska kala sarreynta baasaboorada caalamka oo dhan, haddana waxaa muuqata inuu sanadkani ka horeeyo wadamo fara badan oo waaweyn oo ay ku jiraan Bakistan, Ciraaq, Suuriya iyo Afghanistan sida lagu sheegay xogta ay shaacisay hay'adda ka shaqeysa qiimeynta baasaboorada iyo socdaalka caalamka. Horumarka uu sameeyay baasaboorka Soomaaliya waxaa ka mid ah in wadamada Yurub qaarkood ay si rasmi ah u aqoonsadeen muddo dheer kadib inay aqbalayaan baasaboorka Soomaaliga ah. Tan iyo bartamihii sanadkii 2018 dowladda Norway ayaa aqoonsan baasaboorka ay dowladda Soomaaliya siiso muwaadiniinteeda. Dadaal dheer kadib ayay ku dhawaaqday xilligaasi inay aqbashay jiritaanka baasaboorka Soomaaliga ah sidaasi awgeedna ay dadka wata u saari doonto dalku galkeeda fiisaha haddii uu soo buuxiyo shuruudaha. Wada shaqayn dhow ay yeesheen mas'uuliyiinta socdaalka Norway iyo Soomaaliya awgeed waxay Norway aqoonsan doontaa baasaboorka Soomaaliga ah laga bilaabo 1 bisha Agoosto 2018. Waxaa ku jira baasaboorka diblomaasiga ah iyo sarfiska iyo baasaboorka muwaadiniinta caadiga ah oo ay soo saarto waaxda socdaalka ee Soomaaliya ayaa lagu yidhi qoraal markaasi safaaradda Norway ay Soomaaliya soo dhigtay barteeda. Wadamada kale ee qaaradda Yurub sida wadanka Britain iyo kuwa kale ayaa iyaguna hadda soo dhaweynaya baasaboorka Soomaaliga ah waxaana dadka wata ay u aqoonsan yihiin qaxooti haddii ay fiisa u ogolaadaan ma dhejinayaan baasaboorka. Taas beddelkeeda waxa ay soo raacinayaan warqad caddaynaysa in fiisaha la siiyey qofka macluumaadkiisana ay ku xusan yihiin. Dowladda Sweden ayaa dhankeeda bilowday inay si gaar ah u qadariso baasaboorka Soomaaliya ee noociisu yahay kan diblomaasiga ah. Tan iyo bishii January ee sanadkii 2020 Sweden waxay aqoonsatay baasaboorka diblomaasiga ee Soomaaliya gaar ahaan kan la soo saaray 2014 ama wixii ka dambeeyay. Dhowr wadan oo ku yaala Koonfurta Ameerika ayaa sidoo kale baasaboorka Soomaaliya aad ku aadi karaysaa xilligani iyadoo aan wax dalku gal ah ama fiisa ah loo qaadanin. Waxaa jira wadamo kale oo sidaasi si lamid ah xilligani soo dhaweynaya muwaadiniinta Soomaaliya
Soomaaliyeed iyo baasaboorkooda. Wadamadani qofka uu socda waxa kaliya ee looga baahan yahay waa inuu tigidh goosto hoosna ugu dhoofo. Sidaas awgeed marka uu ka dego ayaa la siinayaa aqoonsiga muujinaya joogitaankiisa. Waxaana xilligani dowladda Soomaaliya ku howlan tahay sidii sare loogu qaadi lahaa awoodda baasaboorka Soomaaliya, isla markaana sanadaha soo socda uu kaalimaha dhexda uga geli lahaa baasaboorada ugu wanaagsan caalamka. Sanado kooban ka hor, baasaboorka Soomaaliga waxa uu ku jiray kaalinta ugu hooseysa ama tan labaad baasaboorada ugu liita caalamka ee aan la qadarinin. Hase yeeshee, tani waxay ka dhigan tahay fafaalo wanaagsan oo u soo hoyanaysa dadka Soomaaliyeed oo iibsanaya horumar ballaaran iyo inay dib u soo ceshadaan dowladnimadii iyo sumcaddii ay ku lahaayeen caalamka. Dowladdii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa arrintani waqti badan gelisay kana shaqaysay sidii sare loogu qaadi lahaa sumcadda iyo awoodda baasaboorka ay leeyihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed, iyadoo hadda laga rajaynayo in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay qaado laabo taasi la mid ah oo ay kaga dhabaynayso waxyaabaha ay hiigsanayaan ummadda Soomaaliyeed. Dhanka kale, Kenya ayaa shaaca ka qaaday in lacag gaadhaysa malaayiin dollar ka guratay maalmihii koobnaa ee qaadkeeda mirooga uu imanayay Soomaaliya kadib markii ay dib u fasaxday dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 2 sano uu xayirnaa. Kenya ayaa dib u soo celinta dhoofinta qaadka mirooga ee Soomaaliya waxay ka faa'iiday 4 maalmood oo qura 221 milyan oo ah lacagta dalkeeda, taasi oo u dhiganta lacag ka badan 1,861,000 oo dollar. Waa lacag u dhiganta ku dhowaad 2 milyan oo dollarka Mareykanka oo Kenya ka faa'iiday ganacsigeeda qaadka ee Soomaaliya, sida ay sheegtay madaxa qaadka mirooga iyo dalagyada kale ee Kenya. Kenya waxay shaacisay inay Muqdisho u dhoofisay 81.4 tan oo qaadka mirooga ahaa 4 maalmood kadib markii dib loo furay suuqa ganacsiga qaadka ee Soomaaliya. Waxaynu ilaa iyo imika dhoofinay 81.4 tan 4 maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana filaynaa in xajmigu uu kordho maalmaha soo socda iyadoo dad badan loo fasaxay si ay badeecadahooda u dhoofiyaan, ayay tiri madaxa beeraha ee dalkaasi Kenya. Ganacsatada qaadka ee Kenya waxa ay halkii kiilo ee jaadka ah ku iibinayaan 2,734 oo ah lacagta dalkaasi Kenya, taasoo ku dhowaad 238 ka yar qiimihii lagu iibin jiray ka hor intaayna dowladda Soomaaliya ayna xayirin qaadka mirooga ah. Kenya ayaa loolan dhanka suuqa kala kulmaysa Itoobiya oo ahayd suuqa qaadka ee Soomaaliya tan iyo markii dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay cagta saartay qaadka ka imanaya dalka Kenya. Hase ahaatee, qaadka mirooga ee ka yimaada Kenya ayaa durbadiiba laga dareemay suuqyada Soomaaliya inuu dhulka la simay qaadka harariga ah ee ka yimaada dalka Itoobiya, maadaama markii hore ay Soomaalidu la qabsadeen qaadka mirooga ee Kenya, iyadoo hadda ay ka qulquleen kadib markii lasoo fasaxay diyaaradaha sida mirooga. Ganacsiga Itoobiya ee gudaha Soomaaliya ayaa hadda u muuqda mid aan caga badan ku taagnayn, islamarkaana dadku ay kasii farxanayaan, islamarkaana ay u roorayaan dhanka mirooga ah inay daaqaan. Lacagta ay Kenya ku sheegtay inay 4 maalmood gudahood ka faa'iiday qaadka mid aad u tiro badan, taasi oo muujinaysa sida Kenya ay u baahi qabtay in dib loo fasaxo ganacsiga qaadka xilli dhankeeda aysan weli waxba ka fulinin heshiisyadii ay la gashay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Heshiis ay dhowaan ku gaadheen magaalada Nairobi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu dhigayay in Soomaaliya loo fasaxo qaadka mirooga, islamarkaana diyaaraduhu ay ka degaan, beddelkeedana Soomaaliya ay kalluunka u beecgeyso dalka Kenya. Balse weli lama bilaabin dhoofinta kalluunka Soomaaliya, iyadoo dalada kalluumaysatada Soomaaliya arrinkaasi dhowaan cabasho xooggan ka muujiyeen kadib markii ay la hadleen warbaahinta oo ay sheegeen inaysan jirin ilaa iyo hadda wax kalluun ah ay dhoofiyeen. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay. Sidaas iyo nabadgelyo.